بشير عثمان عود تليها سلديقة قلبي ذي قروي كسودو تياتر برودكشن waxaad dalbatay in aad waxyaabo badan oo muhiim ah aad umada kala hadasho sidaas la ajligeed ayaan anaguna isku daynay inaan fursad ku siino waxyaabaha aad doonayso inaad dadka kala hadasho marka hore ku soo dhawow shirkadda theater waa ku dhawaay shirkadda theater production waa ku dhawaay ana dalbaday in aan dadka la hadlo wax kale feeban jira horta intaanan hawl kala gelin waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa uu kalifay dadka qaba cudurka aniga hadda aan ka hadlay waxa weey cudurkan ka hadlay waa cudurka HIV AIDS oo ummadda Soomaaliyeed dadka qaba iyo dadka dawada qaato ayagoo qaba dawada qaato iyo dadan dawada qaadan basan sheedka intuu marayo maxaa kalifay oo dibka inta la keenay aniga qaabkay igu dhacay waxaan rabaa dadka ummadda Soomaaliyeed la wadaago meel kasta cid kasta af Soomaali ku hadasho inaan la wadaago waxaan rabaa aniga wixii soo gaaray iyo wixii aan arkay iyo intii hadda xanuunka aan la noolaa wixii ma garanaysaa aan la kulmay iyo dadka dhibaataysan oo saasoo kale xanuunka qaba waxyaabaha qofka bilaadanka naftiisa inuu ku kalsoonaan karo si aan ba ugu kalsoonaan inuu taliyaan ahay meel baan joogaa macnaha waxa igu kalifay waxa weeye waxaan arkay wax badan oo dhibaato ah oo geysanaya haddana dan aan laga lahayn oo bulshada inuu ku baraarugsanay wayahay waxaan jeclaan lahaa bal Bashiir ahaan qisada adiga ku soo wajahday iyo waxaad kala kulantay iyo marxaladda aad hadda ku sugan tahay bal sheekadaada inaad guda gashid anigu horta waxaan ku dhashay degmada Afmadow waxaan ku soo koray meel yada Buurduho baadiyeed ilaa 97 Puntland ba joogo intii ka dambeysay askari baan ahaa marna taliyaan soo noqday mar askari caadi aan ahaa marba meel bay ahayd waan soo koobayaa taariikhdeeda hadda intaasan ku soo koobayaa أنا هذا روح أنا هاي تريا سليقة كنترول كقلبي يقرأ واحد أنا كهلا حنون كان وحيقول دعي وحيقول دعي لو يكون لحية طنكي بيش السداد أيام قبل أقول قبل أنا حنون كان كقاعدته وحنا إسكالي حنونك لبي طبنات مثل سنتك قديس marka waxaan rabaa intii ka dambeysay sidii wax u dhaceen inaan maartay warbaahinta la wadaago ummadda Soomaaliyeed ay dhageystaan qofkana waxa fiican in maartay wuxuu u nool yahay dadkiisa iyo dalkiisa iyo ummadiisa marka marna ma doonayo in aniga wixii soo gaaray digniin inay noqoto kale kuwa hadda qabo kale sidee fursad u heli lahaayeen yaa kala fursad iyo ka banaan tahay maxana hadda waxaan aniga tusalahan haddaan soo qaato dadka qaba xanuunka waxay dhan yihiin 11700 intaynan u guda galin arinta la xiriirta waanada guud iyo waxyaabahan aad doonayso dadka inaad la wadaagtid waxaan rabnaa marka hore sabal inaan step u galno adiga qisadaada Bashiir ahaan barnaamijkan sidoo ku soo wajahay marka waxaan rabnaa inaan marka hore qisadii Bashiir inaan ka sheekeyno ka bacdina inaan u gudubno arimaha la xiriira dadka cudurkan qaba iyo waanada guud oo aad umada la doonaysid inaan galno marka hore waxaan noogu bilowdaa arintan gabadha sida isku guursateen marxaladaad wada marteen isbitaalka markii lagu geeyay muxuu ahaa arintii masaajidka aad kala kulantay waxyaabahaas oo dhan sheekadaasi oo si kooban ah oo qurux badan inaan noo bilowday marka haddaan marka anigu taariikhdeeda ka soo hadlo gabadha waan guursaday waan dhistay waan aroosay magaalada dhinac ka deg adigu muddo 3 bilood markaan qabay ayaa xanuun baan dareemay jirka ah oo nafsiyan oo maartay anigu maartay cuntadii soo celinayo xanuuno badan baan horta dareemay
haddii xanuunkaas muddo aan sidaa ahaa waxyaaba badanna waan arki jiray oo maaragtay gabadha oo dawo cunaysaan arki jiray marna uma qaadan inay xanuunka iyadu la noosho marna uma qaadan laakiin waxaan u qaatay waxyaabo kale waxbaa igu soo dhici jira kale waxaan arkay maalin baan hataa baaray fiiriyey kaniin baan arkay kaniinka muxuu yahay baan idhi waxay tiri waa xasaasiyadda loo cunaa weligeyna ma arag kaniin aan arkay maayo marnana ma soo dhigan cudurkaanaaba meesha maartay sida macnaha fahan la-aanta ugu qabay baan waxyaabaha ay keenay bay ka mid tahay inaan t v imaado soo fadhiisto ummadda islaamka o dhan u sheego haddii saa dhacday markii anigu malahayga waxay noqotay inaan is iraahda uur bay iska ilaalinaysaa ma wax saasaa jiro arrimo noocaas oo kale xagga dhinaca kale u qaata marna uma qaadan bishii 12aad habeenada ka mid ah ba xanuunkii soo ritay anoo ka maqan gurigii bay gabadhii hal mara guurtay boorsadeeda guriga uga tagtay xanuunkana waa ay hayaa haddii subaxdii aan guriga imid waxaan u imid boorsadeeda keliya guriga taala waa wacay oo maxaa dhacay baan idhi saas arrintaas maxay ku dhacday kelmadda iigu jawaabtay waxay tihi waa waxoogaa hadal baana dhex maray markii hore waxay tihi adiga sidaas waad dhimanaysaa bay tihi waad dhimanaysaa waa sumaysan tahay wax adigu hadallo badan baa uma qaadan marka aniga inay maartay xanuunkaas nin baa ila joogay marka ila socday sarkaal asna waan rabnay guriga inaan quraaciyo markaas shaqaana markaa ka tagnay ninkii waxaan ku irniyo hadalkaas ay leedahay ma gaarigay wax noogu xirta ma waxbaa jira see waxyaabo kale markaas qalbiga ku soo dhacay markaas yorniyo hadday saa leedahay anay xanuunkaa qabtaa ninka hadalkiisii baa anigu horta waxay geliyey iyo xanuunka i haya oo halkaa laabta iga haya dabadeed waxaa dhacday inaan iska soo tago boorsadeeda meesha ka soo qaatay reer kalaan lahaa reerkii kalaan imid habeenkii si fiican uma seexan waxay maadaama ninna hadal igu yiri iyadana hadal igu tiri wixii waan fahmay hataa gaari waxbaan ka baarbaarinay wax ka jiraan kale waa gabadhii xaaska kale waxaan ku yidhi oo caruurta guriga joogtay gabadhan caruur ima hayn waxa dhacday waxaan ku yidhi inay carruurta jirtaan u malaynayaa khayr bay noqonaysaa waxay tiri khayr bay noqonaysaa waxa dhacday subaxdii markuu waaga bariyey oo 9 subaxnimo ay tahay baan anigu tagay isbitaalka ma aqoon meesha la iska baaro waxa dhacday waxaan bixiyay $1 waxaan idhi waxaan rabaa dhiig inaan shuba haddana ninkii dhiigiga qaaday waxaan ku yidhi war xanuunkaasaan iska baaraya dhiig shubadii waxaan u bedelay inaan ninka war xanuunkaasaan iska baaraya iga baarinaya waayahay wiiro mishinkii wala aad nin garanayuu ahaa dhalinyaro ah wuxuu sameeyey waqtiga igu daahay saan ku soo noqday waan fiiriyey waxa sameynaya ninkaas dhalinyarada dad iga dambeeyay oo dhiig laga qaaday waraaqii siinaya anigana xogaa dib ii dhiga waxbaan dareemay marka culaysna halka ka jiro ayaan dareemay marka waan u tagay waxaan ku yiri nin iimaan kala ma ahiye qof islaam aan ahay wax kastana oo qadarta rabbina waa kalsoonahay maxaa haday wax jiraan ma ii sheegtay ana waxaan ku weydiisay waa garanaysaa ina keen biyo gacanta ay qabtay warqadina gacanta soo ku waday ima dhiibin markaan sii socono oo maartay meesha ajayfiga lagu baaro xaqiisu ila dhaqaaqay anagoo soo socono wuxuu yiri wahal waay marka niyo waxa weeye ilaahay baa wax walba keena waa hadallo maartay waa dareemaysaa qofka maar dajin oo ah buu xaqaas waasan waxaan ku wareed horta kala cadee been ku sheegay markii intuu wax ii sheegay waa baqay waa cabsanay warka markii la qarxiyay iyo markii kale halaba ii ahayd waxa dhacday ninkii wuxuu yiri waa positive waa qabtaa laakiin anaga keena mid ka casirsan baa halkan yaala oo laga baaro dadka oo caadi oo xafiis u furan buu leeyahay
igee baan idhi meeshuu igeeye waa laga qaaday 3 waxyaabood baa lagu qaaday testi ah 3dii waa laga helay dadkii waxaa la yidhi saan weeye u kaadi waa adigu markii maskaxdeeda waxa kusoo degdegtay laba maado gabadhaan magaalada ku jirtaa habeen hore bay guriga ka tagtay magaaladii weli joogtaa may tegin iyo xaaskii kale labadaas ay ugu soo degdegtay maskaxdeeda kusoo degtay laakiin inuu xanuunkaas ku dhacay kale culayska fuulay uu ka mid ahaa bas yaa marka wakiil ku abaal dhaha qofka marka ugu horeyso oo maartay cudurka laga helo qof inuu wakiilka yaa fiican nima ilmaadirna magaalada joogan u yaray waxaan gabadhina soo qaan xaas kale waa la keenay negative valley ilaa cilmigiisa marka waxaa jiray muddo 3 bilooda xaaska markaan guriga imaado xanuun baa iska kahayay xanuunka marka ma garanayo laakiin 3 bilood gabadhan ismaan aragba laakiin inta qabay dhowr jeer baan aragnay waxaan niyada markaas iri waa kulli waa in laga helayo negative valley 3 bilood ismaan arag gabadhan waxa dhacday negative markii la yiri gabadhii xaaskaygii caruurta ay dhashay hal kelmad ay tiri kelmadda horta aniga ugu horeyso markii ugu horeyso oo qofka idajiyay lambar 1 ayada ahayd waxay tiri shirow dadkana ma dhiftid ummadana dhib uma horseedid wax wanaagsan baad ka shaqeysaa inta badan intaan kugu aqaan anigu waxaan u maleynayaa bay tiri in ilaahay ku daraan maye istaji xanuunka aqabtid aniga meel igama maqno waxa igu soo degay marka qaab si automatic markiiba waxaan xasuustay markii suuradda ooraysa nabi maxamed lagu soo dejiyay iqra lagu soo dejiyay ayaa waxaan xasuustay kelmadii qadiijo ku tiri bas salaad sunnah tukaday waxaan sameeyay gabadhii waan iska diray anigu waxaan sameeyay marka warqad message oo fariina baan u diray gabadhii xanuunka la haygu ridday markaan u diray waa meesha kaliya maskaxdaan ka shaqeysay meesha kaliya oo gabadhaas ku qaban kara weeyaa waxa dhacday gabadhii message baan u diray message markaan u diray waxay tiri waxaan iri lacagti meherka ahayd baan ku hayaa lambarkaadana sahal ma leh ayada caddaana gacanta ku haya xaggee kugu imaadaan inaan qabto qorshayga wuxuu ahaa inaan qabto saa ujeedkayga marka dee waad garanaysaa qof wax ku cusub yihiin anima waa fadhiyo inkastoo iimaankayga iyo caadi xaaladayda caadi tahay haddana maantii hata xoogaa ma seexan jira ma seexan waxay tiri galabta sukaya keen halkaa iyo halkaa okay baan weliba waxaan kaa rabaa bay tiri lambarka sahal ima leh inaad sahal ii furtid waa yahay baan iri waan soo tegey gaari baan soo kaxaystay askari baan soo kaxaystay si iyadoo maaragtay nooc ciidan la diriray markii aragtay gaarigii soo gashayba warqaddii furinka waa haystaa soo ma ahaa ina keen saan usii wada stationka dhexaan ku tuuro stationka markaan soo geliyay waxa iyada kelmadda iga hortay halkaa maxaa noo soo gelisay anna waxaan idhi maxaa xanuunka igu ridday saa markaas gacan bay ku jirtaa moogta ma aniga way naxday way isbedeshay si aad bay isu bedeshay waxyaaba aan ka soo dhaafin way jirtaa markii aan xanuunsan xanuun baa halkaa iga haya laabta aan oran jiray way ilmeyn jirtay maxaa yeelay markii hore way guursanaysay oo aniga aan guursanayo ismayl ahayn macnaha waxyaabo ku jiray baa iska bedelay inay qalad ku jirtay dareensaneyd gabadhaas raas waxaan oran jiray ma mulkumeedkiyaa lagu sheegay maxaa la ilmeynaysaa meeshii markaan adi aan gudaha soo geliyey oobiga waxaa la rabaa wax lagu geliyo qofka laiskama xiri karo qofka dee maxaad ku dacweynaysaa bali anigu marka AJF iyo AIDS midna ma kala qaana war AIDS bay nagu riday gabadhaan xiraan qabta kii qalinka hayaaba intuu tuurayba ordo ninkii rabay inuu wax qoro
bashiiro ma adag kugu dhaca ma adag kugu dhacay dadku way garanayaan oo dee sarkaal inta badan aad meesha looga yaqaan banaa askartii qaban lahaydna nin walba farow ka taagay cabaar ka bacdi baa raggii baan u yeeray warkaalaya eriyo waa la yimid oobigaa la geliyey magaalada waa iga sii horreysay marka waxa koowaad bayd dadkii aniga markii hore xanuunka iga baareen waxay yidhahdeen adaad u doorlay inaad qarsatid iyo inaad faafiso aday ku taallaa ana marka waxaan ku yidhi anigu marnaba wax la yaa wax qaran la yidhahda oon qaranayo ma jiraan laba maadaama u qaranayn anigu tuutaan u xirnaa wax kastoo dhacaya oo dalka ummadda soomaaliyeed oo dhan wixii xaggeeda ka imaanayo anigu tuutaan u xirnaa mid kalena way jirtaayo waxaan anu qalad iguma imaan guur buu igu yimid markii hore ayaan go-aanka anigu sii qaata marka arrintidaasay ahayd waxaa loo yeeray dad ayada baara waxaa aniga laga helay lakin iyada lagama helin weli maogta oo markaas iyadu may khirsanayd inay xanuunkan qabto ma qirsano waxaa loo yeeray dad ayada baara iyadoo station ku jirtaa waxaa loo yeeray dhakhaatiir way baareen waa laga helay c i d dii iyo dadkii wareysanaya baa u yimid waxay tiri anigu ma qabin asagaa igu riday tiri marka hore kelmaddaa markay tiri ayaan waxaan idhi war aniga waxaan arkayay anigu meel kalena ma marin dee meelo kaluuna iga imaan kara waa suurtagal gabadha warkeede laakiin waxaan arkaan idiin sheegaya markhaati ah boorsadeeda kaniin baa ka buuxaani ana weligay arag way diidda marka gurigii inay sheegto xaafaddii ay ku degtay maadaama aniga magaalada iga tagtay gurigay ku degtay inay sheegto lambarkeedii ayaa qofki u dambeeyey ay wacdo baan wacnaa lambarkaa magaranaysa ha anay la joogtaa gabadha anay la nosho gabadhii marka waxaan idhi boorsadeeda ma taalla haa si aniga marka aana shaki loo gelin oo aan loo oran waxaa sidaasay tahay waxaan u diray dad askar iyo dhakhaatiir isku jirto baan idhi boorsada soo qaaday gebigeeda waa la soo qaaday waxaa la keenay saldhigga way joogaan marka raggii maalintaas weliba waxbaa laga duubay laakiin anigu macnaha waan diiday markaas in gabadhaas ayadoo lagu xadgudbo boorsadeeda iyadaa gacanteeda ku furtay mise kaniin baalku wuxuu leeyahay laba nooc weeye nooc waxaa jira habeenkii keliya la laqo oo qofku markuu ageka ugu horreeya ageka labaad markuu galana habeenkii iyo maalintii habeenkii iyo subaxdii baa la laqaa noocaa marka habeenkii maalintii la laqo bay iyada cunaysa oo darajada koowaad ka gudubtay kii labaad darajada koowaad kii labaad bay maraysa waa qofka gogooye u badanta inta badan waxaa dhacday maxaa kuu kalifaalay inaad inkirtid kelmadda waxay tiri anigu dee waa is adkaynayay tiri adigu warkii oo dhamaystiran waa laga duubay goormuu kugu dhacaalaya waktigaas ma yaa ogaa oo dadkeena ehelkaa yaa ogaa gabar walaashay keliya ayaa mas-uuliga ahayd bay tiri og oo magaaladaas ku nool inu magaalada inaan sheego ma rabo oo dadka aan wacyigelinay ka mid yihiin dadka magaalada lafteeda degan wixii waa ugu dhaceen moogta wax colaad aan u hayana ma jirto de waa magaalo dadka soomaaliya ka mid ah waxaa dhacday aniga waxaan la hadlay aabaheed gabadha aabaheed baan la hadlay waxaan ku yidhi xanuunkaasi gabadha la nooshay ana xanuunka baa igu dhacay maalintii ugu horreysana adaan ku weydiistay gabadhaada waxaan igu tiri geel abaar waktigaas jilaal aad adag buu ahaa ninkii garanayaa garanaya waktigaas geel etoobiya loo sii wado oo halkaasoo maarata xoogaa wax ka da-een maarata baan sii wadaaya dee allah isku kin qayru yiri ma ogeyn bay adeer laakiin wuxuu yidhi adeer hadday gabadheedi sidaas yeeshay warka waan helay inay qabtay garawana ku xidhan tahay laba maado adaa u door leh dee inaad waajibkaada ka gudanaysid gacantaaday ku jirtaay iyo inaad magtaada ku siiyo yidhi waajibkaa ka gudanayso aad tooganaysid waa tooganayso midhaa ka wadaa adig soo doona hau qaata isaga marka adeer waxaan ku yidhi haddaadna ogeyn waxna kulama jiraan anigu magna ma rabo xoolo kalena ma rabo saacaddan laga bilaabo gabadhana cafis bay igata laakiin sidii waddada aan usoo marin lahayn keliyaan falankeeda qabanaya waxaa jirtay marka gabadha waxaa u yimid oo wax ka qoray c i d da
maxkamadda si hawshaas maartay waxa la isku raacay oo inta badan maxkamadda toos looma geyn gabadha laakiin waxaa la isku raacay qofka noocaas oo kale ah oo sidaa yeelaya oo isagoo xanuunkii qaba noocaa samaynaya oo qof diluu la mid yahay hala toogto marka maxkamaddii iyo c I d dii ani maadaama waxba iga soo go-ay waxaan is idhi gabadhan xaaskaada is noqotay amarkaana waa dhacay mana soo noqonayo kow wax kalena way jiraan oo dee wax markaa culays oo isaaran maadaama ilaahay xaas kale ii fiyoobeeyey aan caafimaad ahay carruurteyda caafimaad yihiin sidii kaleo aniga aan wax loo dabaalan karan loo dabaasha lakin gabadhan inaan cafi xag ilahay ka cafiya aan waxba loo raacan bes warqad baan qoray saldhigana waa dhigay c I d dana waa siiyey maxkamaddana waa siiyey adigu rag igula taltaliya way jiraan waxyaabo kale oo hadda aanan ka sheekeyn karin dad kale oo soo weeraray gabadha way jireen oo faamilka ah oo dumar u badan yidhi oo inay dilaan rabay anigu marka waxaan sameeyey gabadhii gaari baan ku daray ilaa iyo muddaan la socdo si ay magaalada waddanka uga baxdaba markaan gaariga ku daray intay meesha ku jirto hawshaan dhamaynayana biilkeeda iyo waxeedana meeshaan ugu geyn jiray horta anigu sidaas horta igu dhaca marka aan kugu sii daray waan gudagala wixii marka arrintii baan sii gudagala waxa weeye dawadii baan u qaataa waad dareemaysaa nin buko boqol kuu talisa baa la yihahdaa waxaa la yidhahdaa xagga lagaaga duceeyey xagga saas ahayd iyo kana saas ahayd iyo caano geel cab iyo kaadi geel cab iyo adigu hawsha waa badanaysaa mogta horta qof ka biskooday ma haysaan baan idhahdaa dad badan baa waxay yidhahdaan markay cayilaan xoogaa dawada cunaan bay anigu waa iga baxa ninkan waan kusoo baaraya baan dhaha waxaad ku biskootay baan rabaa markii arrimahaas ay kaa xalismeen kadib maxaa go-aan ah oo nafsiyan ah aad qaadatay adiga waxaan horta go-aan qaatay inaan shaqada ka tago dhinac kale inaan u rogo shaqada aan ka tago dee diinta barashadeeda iyo hawsha iyo inaan halkaa iska aado laakiin aanan arrintan ciidamanimada iska daayo halkaa ka baxo taliyihii booliiska markaa joogay iyo saraakiishii markaa joogtay ama qayb ha ahaato ama cid kalaba ha noqotee waxay ugula taliyeen inaanan shaqada ka tegin haddaad tala naga maqlayso annaga taladeeda qaadanaysana ka tegi misid baale shaqadaada joog weliba taliyaha booliiska waa magacaabaya ereg nin la yihahdo ahaa wuxuu yidhi aniga lacag hadda aan ku siiyo jeebka kaa siina ma hayo kama tegi kadib shaqadaada waad haynaysaa inta anigu aan joogana waad joogaysaa kuwii ka dambeeyeyna sidoo kale yahay iyo kuwa hadda joogaba shaqadii sidii baan u haystaa meeshii saldhigii aan u joogaa uga shaqeeya haddaan waxaa leeyahay haddaan wax hagaajiyaba marka waxaa jiray aniga markaa talooyinkii ugu dhashay waxay ahaayeen dee waa lagu talinayaa dad baa kugu imaanayo kuwaa miyi kaaga imaanayo kuwa magaalo kaaga imaanayo waxaa la yihahdaa idaha hilibkooda la cunaa xaggaa laga laabtaa marka anigu wixii o dhan intaan joojiyey baan dawadayda si toos u qaata waxa koowaad oon samey taas ahayd waxa labaadna ilaahay ii keenay baa isku xiro qof kasta haddaan arka hadda laba nin gabar iyo wiil wada socdo waxaan idhahdaa war horta isbaara intiina meel aadin macnaha su-aalaha koowaad aan samey maxaa dhacaysa xanuunkaasaan la noolay dadku way yaabaan waxay yidhahan ninkaan buuran oo noocaana beentiis way taasaan sameeyey wacyigelintaas iyo inaan ilaah isku xiro marka labaad waan soo xajiyey xajkii baan tegey sanadkii dhawaa sanadka haddaan sanad ka horreeyey 2000 iyo maxaan ku rahdaa 18 marka alxamdulilah rabbi alcaalamiin intii ka dambeysay hal maraan isbaaray baaritaankayga waxaa la yihahdaa wax intaa ka yar kolley dee ma hadda ma haye statidii markay sameeyaa waa wax daciifa ay ugu jiraan hay wuu nusqaamo wuu yaraada waxaa keenayana wax stress iguma jiraan inaan qof kale caawiyo oo anigan aan maaragtay wacyigelin iyo u sameeyo ma ahana wax aniga nafsiyan marka dadka markay wareystaan waxaan idhahdaa war xanuun ka horreeya markii hore xanuunsanaa baan idhahdaa hadda macnaha intuuna xanuunka igu dhicin iyo hadda
markii hore aan xanuunsanaa ee hadda waa caafimaad qabaa maxaa yeelay wax badan baa ii siyaaday waxaa diinta xaggeeda salaada soonka aad baan maartay halkaa ugu fiicnaa caqabado ma jiraan intaad hawshan aad ku jirtay wax caqabado ah oo aad maxaa kamid ah way jiraan 3 caqabadood baan horta garanayaa